xidhiidhka kugu xidho dadka madaxda ku ah kuwaad madaxda u tahay iyo kuwa kula simaniba waxa uu aasaas u yahay ku guulaysiga hogaaminta wacan. markaa adigoo ku talagelaya inaad hogaamisid koox ujeeda in ay gool wada dhaliso waa inaad tixgelisid xidhiidhka kor iyo hoos iyo dhinacyadaba, maxaa yeelay adiga awaamiir baa korkaaga imanaysa, adna awaamiir baad hoos u diraysaa, waxaanaad wada shaqaynaysaan dad asaagaaga ah oo kula siman xagga darajada shaqada, waxaana la isku biirinayaa midhaha shaqadaada iyo tooda si loogu guulaysto ujeedada loo halgamayo. markaa waa inaad garatid saddexda xidhiidh, mid kastana xaqiisa oofisid. madaxdaada waa inaad u gargaartid, shaqaalahaagana waa inaad madax caadil ah u noqotid, kuwa asaagaaga ahna waa inaad iskaashataan. taasina waxay keenaysaa inaad si dhab ah u gudatid waajibaadkaaga si aanay shaqada kooxdu u murgin oo ay u kala socoto. taasina kuu suroobi mayso haddii aadan shaqadaada iyo wixii la xidhiidha iyo dadka ay saameynaysaba si dhab ah u baran ugana baaraan degin. waxaana jirta markaad jaranjarada maamulka kor u fanatidba in ay ku muuqan doonaan arrimo aadan hore ula socon, sida in howlahaagu kordhi doonaan, adkaana doonaan xidhiidhka aad la leedahay shaqaalahaaga oo ballaadhanaya, sababtoo ah waxaad mas-uul ka noqonaysaa dad hor leh, kuwii horena waad ka fogaanaysaa. waxaana idin dhexaynaya kaalkaaliyayaashaada oo ku soo gaadhsiin doona arrimahooda. waxaa kale ood ogaan doontaa markaad dallacdaba in saaxiibadaadii hore yaraanayaan, maxaa yeelay shaqada idinkala fogeynaysa. markaad jagada sare gaadhid waxaad dhexgelaysaa bulsho cusub, waxaad la macaamili doontaa wejiyo cusub, waxaana ku dhalan doona naftaada loolan sidaad isu waafajinayso la tartanka saaxiibadaada cusub xagga shaqada iyo raaligelinta saaxiibadaadii hore oo doonaya in sidii hore xidhiidhkiinu sii ahaado, islamarkaana ay ka faa'iidaystaan jagadaada cusub si aad uga soo dhammaysid arrimahooda xafiisyada sare kaga xidhma ee aanay gaadheen. sifada ugu muhiimsan ee hogaamiyuhu waa kartidiisa la dhaqanka dadka iyo howlgelintooda. waxaana jira mabda aasaas u ah maamulka jago kasta oo aad joogtid, mabda-aas oo ah in waajib kaa saaran yahay xagga madaxdaada, dadka aad madaxda u tahay iyo madaxda aad simantihiin. markaa waxaad u baahan tahay qiimeynta madaxdaada, gargaarka shaqaalahaaga iyo iskaashiga asaagaaga. dadkaasaana aayatiinkaagu ku xidhan yahay. markaa ha fududaysan waajibaadkaaga heer kasta oo aad gaadhid. xidhiidhka idinka dhexeeya adiga iyo ninka madaxda ku ah waa mid golco badan oo taxadir u baahan. adigu waxaad tahay xubin ka mid ah kooxda uu hogaaminayo. habka aad shaqada u gudataana wuxuu ka qaadanayaa kaalin weyn qiimeynta iyo qadarinta shaqadiisa, sababtoo ah doorashada kaaliyihiisu waxay ka mid tahay shaqadiisa, siduu wax u qabtaana isagay ku xisaabsan tahay. waxaa waajib ah in aad ogaatid in maamulahaagu kaalinta hogaaminta ku jiro, adiguna aad isaga gacanyaro u tahay, isagaana talinaya oo arrinka goynaya. waxaana waajib kugu ah inaad la socodsiisid waxaad qabanaysid, isaguna xaq buu u leeyahay inuu kula socodsiiyo waxa uu rabo inuu fuliyo. markaa ninka madaxda ku ah wuxuu u baahan yahay gargaare laysku halayn karo oo ka xiltira mas-uuliyadda, ugana raaxeeyo arrimaha yaryar iyo kuwa sahlan. waana inaanu waqtiga kaga lumin su-aalo aan maclan lahayn iyo waxyaabo aan shaqada aasaas u ahayn. haddiise arrinku yahay mid taabanaya siyaasadda shaqada ama u baahan ra'yigiisa gaarka ah, waxaa waajib ah in aad la socodsiisid ood ra'yigiisa fulisid. adigu waad jeedin kartaa ra'yigaaga, isagaana qaadan kara ama diidi kara hadba siduu xaaladda u arko. ogow inaan madaxdaadu rabin inaad la keli noqoto arrimaha waaweyn adigoon taladiisa tixgelin, isagase waajib kuma aha inuu taladaada qaato xataa hadday toosan tahay. markaa ha dhibsanin haddii taladaada la diido, maxaa yeelay madaxdu waxay haysaa xog aadan ogeyn, waxaana la arkaa inuu arrinta dhinac kale ka fiiriyo isaga oo xuskanaya xog ogaalnimada adiga kaa qarsoon. haddaba ha ka cadhoonin marka la diido ra'yigaaga, maxaa yeelay qaadashadiisu khasab kuma aha ninka madaxda ku ah. waxaa ka mid ah shaqadaada in aad madaxdaada la socodsiisid hadba heerka ay shaqadu marayso, laakiin ma aha inaad wax kastaba ula soo orodid, ee waa inaad warbixin guud ka bixisaa shaqada iyo meelaha muhiimka u ah inuu si gaar ah uga warqabo. ku talagal inaan ninka madaxda ku ahi keligaa kula shaqaynayn. markaa ku xisaabtan intaad ku leedahay waqtigiisa. taana waxaa lagu qiyaasaa hadba howlaha lagu xil saaray intay dhumuc leegyihiin iyo siday ugu xidhan yihiin madaxda maamulka in uu la socdo. markaa ha kaga luminin maamulahaaga waqtigiisa qaaliga ah sheekooyin iyo mashaakil gaar ku ah. hana ka caado yeelin inaad hadba dafis ka soo tidhaahdid xafiiska adigoo isla wax u sheeg maamulahaaga. haddii aad sidaa fashid waxaad arki doontaa markaad xafiiska gashaba in ay xoghayntu kaasoo daba gasho iyada oo u sheegaysa arrimo muhiim ah
ama la socodsiinaysa inuu qof u joogo. dariiqadaasina waa xeelad uu iskaga ilaalinayo xadgudubkaaga iyo sheekadaada waqtiga ka luminaysa. haddaba ka digtoonow inaad ku kacdid arrimahaas doqonnimada ah. habka wargelintu waa laba jid oo kala ah, afka iyo qoraalka. marka haddaad warankaaga ku dhiibanaysid oraa, ka fiirso waxaad odhanaysid intaadan bilaabin, waxaana door roon inaad qortid bilowga xubnaha aad ka hadli doontid si aadan u kala iloobin ama aadan isku weydaarin. waxaana waajib ah in hadalkaagu kooban yahay oo uu cad yahay, isla markaana lagu qanci karo. waana inaadan ka bixin mawduuca aad ka hadlaysid, maxaa yeelay haddaad ka baxdid waxaad iska luminaysaa waqtigii aad qancin lahayd madaxdaada. sidoo kale haddaad qoraal ku bixinayso, waa in qoraalkaagu cad yahay, kooban yahay, isla markaana kulansaday dulucda arrimaha, ujeedada iyo talooyinkaaga. waana inaad diyaar u tahay su-aal kasta oo lagu soo jeedin karo. ha sugin markasta in lagu sheego shaqadaad qaban lahayd. waa inaad feejigan tahay oo taqaanid xilkaaga iyo sidaad u gudan lahayd. waa inaad uga raaxaysid maamulahaaga arrimaha yaryar iyo kuwa fudfudud. waa inaad kala taqaanid waajibkaaga iyo kan madaxdaada si aadan isugu labin arrimaha. ku qadar inaad la shaqaysid agaasimo guud oo u madax ah 5 maamule. waajibka agaasimaha guud waa inuu howlgeliyo oo kormeero 5 maamule, laakiin waajib kuma aha inuu la socdo arrimaha hoose ee maamule kasta xafiiskiisa u gaarka ah. waxaase ku waajib ah inuu isku habeeyo howlaha maamulayaasha si ay isula socdaan una xaqiijiyaan ujeedada hay-addu u dhisan tahay. markaas si aad u gargaarto naftaada iyo madaxdaada, ballaadhi aqoontaada, maxaa yeelay hadba inta aqoontaada shaqada la xidhiidhaa korodho ayaad u dhowdahay dalacaada iyo hore u kaca. ogow in ninka madaxda ku ah aanu doonayn inaad shaqadiisa qabato, wuxuuse doonayaa inaad shaqadaada fulisid si shaqadiisu u sahlanaato iyo inaad fulin karto waajibaadkaaga iyadoon kormeer lagula dul taagnaan. waxaa aada u halis ah inaad shaatiga ninka madaxda ku ah gashatid oo aad shaqadiisa qabatid. waxaa waajib ah inaad ogaatid inaad ku shaqaynayso amarka madaxdaada, xataa haddii aad talo fiican keento ama aad xal u hesho mushkilooyin shaqada hortaagan, waxay ku baxaysaa saxiixa ninka madaxda ah, maxaa yeelay isagaa shaqada u xilsaaran. hana isku dayin inaad kala wareegto awooddaas adigoo faafinaya in talooyinka wanaagsan ee maamulahaagu la shir tegay ay fikradahaaga yihiin, maxaa yeelay talooyinkaaga markuu ogolaado waxa ay u godoomayaan kuwa uu isagu keenay. waxaana waajib ah inuu isagu kaa abaalmariyo dadaalka aad dhiibatay ee guusha keenay iyo sidaad ugu gargaartay xalinta dhibaatooyinka. waxaad ogaataa in fikradaha ay madaxdu la shir tagto inta badan rag kala keenaan, iyagaana ku magac qaata. maxaa wacay ninka fikradda lahaa ma meel marin karo, markaa ninka fuliya ee hirgeliya ayaa magaca qaadanaya.